Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Jilba xanuunka waa xaalad caan ah, dadkana ka cawdaan in badan, waxa uuna saameeyaa da' kasto. Jilba xanuunka waxa uu imaan karaa marka uu dhaawac gaaro jilibka. Dhaawacyada gaari kara jilibka waxaa ka mid ah in carjawda ama seedka jilibka dilaaco amaba uu ku yimaado dilaac. Jilba xanuunka sidoo kale waxaa sababo xaalado kale oo caafimaad darro ah sida caabuqyada kala duwan ee ku dhaca kala-goysyada lafaha. Calaamadaha jilba xanuunka waxaa ka mid ah marka hore qaybta jilibka xanuunka sameynayso iyo darnaanshaha xanuunka waxay ku xiran tahay waxa sababay jilba xanuunka. Calaamada ugu horeyso: 1. Barar iyo in uu adeeg noqdo jilibka. 2. In jilibka uu yeesho gaduud iyo kulayl. 3. Daciifnimo dhanka socodka ah. 4. In qofka awoodi waayo in uu jilibka fidiyo. Waxaa wanaagsan in aad dhakhtar aado haddii aad aragto jilba xanuun leh calaamadahan soo socdo. 1. Haddii aad aragto qayb ka mid ah jilibka oo bararsan. 2. In aad awoodi weydo in aad jilibka kala fidiso. 3. Haddii aad aragto qaab dhismeedka jilibka oo wax ka beddelan. 4. Qandho iyo jilibka oo gaduud noqdo. 5. Xanuun daran oo la socdo dhaawac ku gaaray. Haddaba, waxyaabaha sababa jilba xanuunka waxaa ka mid ah: Qodobka 1. Dhaawacyada soo gaara jilibka waxay saameyn ku yeelan karaan carjawda iyo seedaha jilibka hareerihiisa ku yaallo. Sidoo kale, dhaawaca soo gaara jilibka waxa uu dhaawici karaa kiishka dareeraha ku jiro ee jilibka, kaasoo shaqo muhiim u ah ka qabto waxaana imaada xanuun. Sidoo kale, xanuunka jilbaha waxa uu yimaadaa marka uu dhaawac soo gaaro carjawda qaybaha hore ee jilibka. Sidoo kale, xanuunka jilbaha waxa uu imaadaa marka jab ku dhaco lafta yar ee jilibka. Sidoo kale, xanuunka jilibka waxa uu yimaadaa marka ay lafta barabaxdo. 2. Waxyaabaha sababa jilba xanuunka waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee caabuqyada ku dhaca kala-goysyada lafaha. Dadka khatarta ugu jira in uu ku dhaco jilba xanuunka waxaa ka mid ah: 1. Dadka sida xad-dhaafka ah u cayilan. 2. Dadka murqaha adkaada sida dadka naafada ah. 3. Dadka ah xirfadlayaasha ciyaaraha sida kubadda cagta. 4. Dadka qaba dhaawacyo hore oo jilbaha ah. Haddaba, sidee looga hortagi karaa jilba xanuunka? 1. La soco miisaanka jirkaaga. 2. Waxaa wanaagsan in aad tababar qaadato inta aadan ciyaarin kubadda iyo ciyaaraha kale. 3. Waxaa wanaagsan in aad jimicsi samayso. Haddaba, sidee ku yareyn kartaa jilba xanuunka adoo gurigaaga joogo, ama qaabkee ayaad ula tacaali kartaa jilba xanuunka adiga oo gurigaaga joogo? 1. Marka hore waxaa wanaagsan in aad nasato. Qodobka 2. Isticmaal baraf waxaad saartaa jilibka ku xanuunaya si aad u yareyso xanuunka iyo caabuqa. 3. Waxaad isticmaashaa biyo diirran si aad u yareyso xanuunka. 4. Waxaa wanaagsan in aad cadaadis saarto jilibka adiga oo xiranaya bantaajada. 5. Sare u qaad jilibka adigoo fadhiya si bararka u yaraado. Si uu bararka kaaga yaraado adiga oo fadhiyo, jilibka ama lugtaada kor u qaad. Taas waxay kuu sahlaysaa in uu ka yaraado bararka. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah in aad ka faa'iidaysateen topigeena maanta, kaasoo ku saabsanaa jilba xanuunka waxa sababo, calaamadaha lagu arko, qaabkee loola tacaali karaa adigoo gurigaaga joogo. Fadlan fiidiyowga ha ka iloobin in aad like saarto una share gareyso asxaabtaada iyo walaalahaada kale si ay iyagana uga faa'iidaystaan. Haddii aad nagu cusub tahayna fadlan channelka ha ka iloobin inaad subscribe saarato, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Wassalaamu calaykum.